السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال ملك صديق داونيسان مركز سود وهذا sidaan idin sheegayba waxaan hore noogu sii socon doona waraysiyadeedii aan la yeelan lahayn bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Canada anagoo marba dhinac ka fiirin doona marba dhinac aan ka gali doono caawa barnaamijka waxa iigu martiya wiil dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Calgary kana mid ah dhalinyarada sportska ee gobolka Alberta waxaan doonaynaa inaan arrimo badan ka wareysano oo la xiriira dhinaca sportska iyo dhalinyarada gobolkan marka kuwaad soo dhawo saaxiib waa kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga iyo sida aad caawa noogu imaatay kuwaada ku bilaabaya magacaaga kooxda adiga aad ka tirsan tahay hadda ee gobolkan magaalada Calgary orda maxamed oo ku salaamay adigii inta af Soomaali ku hadasho waxaan ugu salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi magacayga waxa waaye Axmed Maxamed Cabdi oo ku magac dheer Buuhoodle ama ka gaawa marba wixii dhalinyarada sportiga yaqaanaan salaanka bacdi aan waxaan u dheelaa koox ka dhisan magaalada Calgary ee Soomaaliyeed kooxdaas oo magaceeda la dhaho mataqaana SCSC so ma sha Allah tartamo badan aan ka qayb galnaa sida African Asia Cup oo magaranaysa sanad kasta samarka xilliga samarka la qabto oo magaalada Calgary lagu qabto sidoo kale National League la qabtaa samarka waxa kale hadda mataqaana bilaamar raba Kuusa League oo mataqaana adiga 40 iyo mataqaana 8 game la dheelayo insha Allah aan rajaynaa inaan ku soo guuleysano hadda bishii hore waxaan ku guuleysanay National League oo mataqaana Champions League oo markii ugu horeysay akan la dhigay so ma sha Allah waan soo qaadnay community-gana mataqaana saad bay noo garib taagan magaranaysaa so ma sha Allah waa fiican team han mataqaana saad baa u dadaalanaa African Asia Cup kana sagana sidoo kale sanadka hore la qabtay saga waan qaadnay laakiin sanadka lama dhigin oo samarka hadda lama dhigin so insha Allah waxaan ku rajaynaynaa inaan mataqaana ku guuleysano Kuusa League hadda la bilaabayo insha Allah oo ma garanaysaa dad badan oo players badan oo ma garanaysaa experience leh aan ugu jira fahmaysaa kooxdan community horta saad noo caawiya community Calgary ka dhisan ma sha Allah wa salaamaya Faarax iyo Jilaan labada halkan baa ka salaamaya horta runtii saad baa noo garib istaagaan sababtoo teamkayga hadda 7 qof camal ah shaqaysan inta kala arday u badan yihiin soo 7 qof waxa awoodaan ku soo daraan laakiin inta badan community-ga aan caawiya fahmaysaa soo ma sha Allah waana halkan ka salaamay iyagana okay waxa jirtay maalin dhawta inaad ka qayb gasheen tartan caalami ah oo lagu qabanayo magaalada Edmonton ee isla gobolkan bal wax yar nooga sheeg tartanka ayaa ka soo qayb galay yaa abaabulayay sidee u dhacay bal guud ahaanba tartankaas tartanka Edmonton oo ka qayb galnay horta tartanka waxa abaabulay Najib oo marna kabtankayga ahaan jiray markaa u dheeliyay Brooks team haddana mataqaana ka fadhiistay kubadda oo ma garanaysaa kaabkay waxaas dhiga oo dhalinyarada sportiga markasta garab taagan halkan baa sagana ka salaamaya wallahi tartanka bro is good ma fahmaysaa si fiican u socday baanaga Calgary ahaan mataqaana meeshii aan ku hanweynin maana gaadhin inta dadaalkayga waan bixinay ka bacdi mataqaana aakhir adigu waa hadnay so dhalinyarada ku guuleysatana mataqaana dhalinyarada saaxiibada oo ma garanaysaa si fiican isku wada naqaano waayo soo haday ku guuleysteen hadan ku guuleystay isla meeshii bay ahayd iyagana mar kale halkan ugu hambaleenaya mar horena ugu hambaliyay wallahi tartanka waxa ka soo qayb galay 6 kooxood oo 5 team oo mataqaana Soomaaliya iyo hal team oo Oromo ah soo marka laba group baa loo kala dhigay tartanka soo group kasta waxa baxay hal koox haadhaysay laba soo baxay ka bacdi soo final la dheelay laba iyo laba afka la isku dhacay kabacdi labadaas laba baxaysa laba soo harsa labada finalka marka midna hado baxaya hal xabal ee mataqaana ku guuleysanay kaabka waxaan doonayaa wax ka ogaado bal hadaad adigu kamid tahay dadka arrimaha sportska aad ugu jira ciyaartooyna ah maamulkana kamid ah wax badan kala socda tartamadan ka dhaca gobolka wali ma aad aragtay dad Soomaali ah oo kamid ah kooxahan oo quality-gooda aad isdhihi karto dalkeena u baahnaa in loo qaado ama ay ka qayb galaan kora national teamka Soomaaliya oo kale intaad ciyaaraha ku jirtay Canada ma aragtay kale horta su'aal fiican ay weydiisay horta dhalinyaro badan aan ku arkay sida hadda wiil dhaca Cabdi Casiis camal hal mar nationalka u dheelay uu fiican yahay waxaan dhihi karaa qofkii ugu fiicnaa waa iga horimaada kubadintan dheelayay ma garanaysaa
عدعيس ولا الكيستو اللي عمل وفي عنيهاي قرن كوبها يا عنق عمل مقرنسة إن لقاضوا متقنا تالنت في عن بوليه ويل كلاسقنا ميسي لدها سعد بوفيعنا أبشر ويل لدها وقال قرود دالج يشك عبد الرحيم ليبان دلني ربنا وحاجنا مقرنسة سعد وقصة بحلا قرن كادي ديل لهاي مقرنسة وكبجود سعد هير سرا joogtaa laakiin ma garanaysaa aan chaniski haysan waa gartay saad xustayba waxaa jira dhalinyaro Soomaaliya oo hadda gobolka jooga oo quality fiican leh aad isdhayso mustaqbalka Soomaaliya waxbay ka caawin karaan ama qaranku waa u baahnaan lahaa maxaad dhihi lahayd ama kula talin lahayd bal maamulka guud ee arrimaha sportska ama waaxda sportska Soomaaliya ma jeclaan lahayd inay idin imaadaan oo ay arkaan bal dhalinyaradaas aad sheegayso kale si ay u qiimeeyaan inuu dalku u baahan yahay kale ama ay tababaradeeda u siiyaan runaantii waan jeclaan lahaa inay imaadaan ma garanaysaa mas'uuliyiinta qaybta sportiga u saaran qaranka Soomaaliya hadday noqoto under 17 under 19 under 20 iyo kuwa ka waaweyn caadi qaranka caadiga u dheelo nationalka matala waa fikrad aan ku farxi lahaa arki lahaa ma garanaysaa inay soo booqdaan Alberta ka bacdi mutaqana ciyaarto ka eegtaan sida mutaqana Europe iyo mutaqana Mareykanka camal uga eegtaan ciyaarto ka bacdi ay ka haystaan fahmaysaa soo ku farxi lahaa walaal arki lahaa mutaqana qof dhalinyaro aan saad isku naqaan oo qaranka funaanadiisa xidhan waxaan isweydiin karnaa qofka Soomaaliga ee banooniga ama sportska aadka u jecel ee doonaya mustaqbalka inuu sportska ku biiro ama Canada uu meel ka gaaro kale maxuu sameyn karaa maxay yihiin wadooyinka u furan si uu riyadiisa u bilaabo kale ama meelaha uu ka bilaabi karo riyadiisa maxay noqon karaan horta su'aal fiican waaye taas ay weydiisay waan su'aal u baahan dadka mutaqana wadanka markay ku cusub yihiin inay ogaadaan ani horta ana xagee ka bilaabayaan horta age ka number 1 waaye hadduu qofka high school aado ama college camal uu aado chance uu heli karayo oo professional ku noqon karayo qofkii la age ku siira weyn yahay mutaqana hadduu shaqeysto iska caadi isaga anaga camal iska soo kaagilaya ma aragti liiga gagaabeedu dheelaya waxa laga yaabaa dadka qaar inay isweydiiyaan dhalinyarada sportska markay ciyaarayaan maadaama ay dad dhalinyaro yihiin dawladdan aysan fangareynin toos ama koox weyn aysan ahayn yaa u qaba dhaawacyada soo gaaro kale ama caafimaadkooda sidee xagee la aadaan oo kale markii banooni la ciyaarayo injury qofku soo gaaro kale maxaa la sameeyaa oo kale nolig marka dheelaysid anshurisiga ayuu leeyahay liigu anshurisigaas qofka la geliyaa ka bacdi mutaqana saas mutaqana hadduu wax noqdo anshurisiga ka fargareynayo mutaqana iyaga bay garanayaan intuu ilaa mutaqana caafimaadkiisa 100% ka noqonaya